سؤال جواب. magacaygu waa Axmed Cabdi Cali waxa la iguna la yaqaan Reeti aniga iyo nimanka dhalinyarta ah ee hararahayga fadhiyaaba waxaanu u qabanay shirkan jaraa'id inaan ka hadlo arrin hore halkan uga baxay oo nin dhalinyaro ah uu sheegay arrinkaas oo uu ninku dhalinyarada uu yiri waxaan hay gudoomiyihii dhalinyarta beesha bariga Burco oo uu ku taageeray in isagoo ku hadlay afka dhalinyarta bariga Burco oo ku taageeray Muuse Biixi Cabdi intaasan doonayay inaan iftiimiyo aan si maxaan ku raahday macquuliyad ku jirto oo waylnimo ku jirto dadnimo ku jirto aan ugu jawaabno anagoo dhalinyarteeda isku duuban horta ugu horeysan iyo dee ummadu dhaqan bay leedahay dadku dhaqan buu leeyahay waxba laga xushoon jiray waxba la qadarin jiray waxba maxaan ku la hamrin jiray waa waxyaabo noo cusub yani qof wax aanu hayn sheegto iyo isku dubiyacan ninka dhalinyarta ah ee yiri waxaan ku hadlayaa leeyahay Mukhtaar Maxamed Cabsi la yiraahdo afka uu ku hadlaya afka dhalinyartana ma aha reerka afkiisina ma ee waa af isaga lala soo dhaxmaray waxaan ka hayaa inaan nul fadal ma liibaanin deeriya la xudaabacay nin cid gaaraba arrinkan soo dhiibatay cid gaaraba u shaqeynaya ninka dhalinyar reer ma matalo afkoodana kuma hadli karo maandheedno uma haysto gudoomiyaha dhalinyarta beesha bariga Burco jooga isaga mucdi iyo bartamihii dhalinyarta jooga isaga arrinka dhalinyarta ka go'a isaga afka dhalinyarta ku hadli karo oo maandheed u haysta inta wixii soo dhaafsisan oo waraa u dahr wadaha dibadiis assalaamu calaykum bismillaahir rahmaanir rahiim aniga magacaygu waa Maxamed Caawil Cabdulle aniguna waxaan ahay afayeenkii dhalinyarta Habarjalo waxaan halkan ka cadaylayaa 90% dhalinyarta beesha bariga Burco waxay taageersantaa garabka isbahaysiga dimuqraadiyadoonka ah ee kulmiye ee ay hogaaminayaan aqoon-yahanada ay ka mid yihiin Maxamed Biixi Yoonis Axmed Cabdi Gijaande عبد العزيز محمد سمالة حرس علي حاج حسن عبد الرحمن طليالة وابيه عبد أو طاهر قرب كاسي تاجر سين دل كنا أقوم بانو أنك دورلين أنك قلم بانو دورلين أنك قريم دورلين من التاجرين أنك حن تاجرين أقوم يانكا ودنك إن دل كنا أنك عقلك يجا يعطك يجا علمك يجا كمدملين لكن وان كودسينا waxaanuna dooraleynaa hogaamiye ku haboon hogaamintiisa waana kuwa aanu sheegnay waanuna wadanaa kamana hadhayno guushana iyo gaale waxaad mooyo qooqaaratiyo malahu waa been anigu waxa leeyahay ninka la yiraahdo Mukhtaar Maxamed Cabsi وأنا شغالة وزارة الدولست كشغالة وزارة الدولست وزير كي هيسكتري هدير مدحتوية محمود حاج عبدي وأن حنبار سنين سياسة ده برجعله هي سياسة بيش بريك برحو هي سياسة رير شمالان أن ميل وكجية على جرين هجامنا أنهين أيام مختار ديك توصل صاري إنه كهاد لا أفكر دليل تهبر شغله أفكر دليل تهبر شغله عند قولة كهاد ذكرتها وعند ما نديت كايسته شرع حساتك حس دليل تهبر شغلنا وحدقة يا عند ما نديت كيا هاي سأم بكهاد ذكرتها أنا قحن لين هاي يان ليس حق حقن يان ليس حجيمين هلا لي ما دو سياسة صح annaga maamulka dhalinyarta habar jecel geeysa annaga wakiilga waxaan kaga baxayaa nin walba waxaad mas'uul ka tahay ka hadal nin walba waxaad mas'uul ka tahay ka hadal waxaanad mas'uul ka ahayn hakaad waxaana aad uga codsanayaa wasiirada xeelka haya ee ka soo jeeda beesha bariga Burco inay la yimaadaan siyaasad midaylaysa habar jecel laakiin aanay habar jecel kala saarsanin anigu magacaygu waxa weeye Maxamuud Jiif Caaqil Cali Maxamuud Cismaan baanahay sababtaan halka uga hadlayana waxa weeye taa dhaqanka oo anigu ka soo jeeda bariga beesha bariga Burco halkan dhawaan waxa ka hadlay nin dhalinyaro magaciisa muxuu xataa ma garanayo anigu oo inayadiisa ma garanayo nin ragayso inta ku soo leekaday waan ahay Mukhtaar isma garanayna anu malaynaya runtiina Mukhtaar waxaan leeyahay Mukhtaaro waa degdegtay waayo ma aha
beeshu ma aha beel nin qof dhalinyaro qaadan karo beel qof qaadan karona ma aha waa beel taliyo meel looga taliyo qolada soo dirtay la carab laabayna mid baan leeyahay waxaan leeyahay waliba aan magac dhabe nin baa laba wada ku soo baxay isagoo aad u safradaysan baa laba wada ku soo baxdo markaas uu yiri talo taybaad qaadaa muusow nin baa laba wada ku soo baxay isagoo aad u safradaysan baa laba wada ku soo baxdo markaas uu yiri talo taybaad qaadaa dabeed xogaa isku hayo mid buu indhaaday ku qaaway in yar markuu socdo beel u tagay si wanaagsan oo ali bareedayo hilibkii iyo markaa wadatay oo dabeed xogaa markuu soo jiray oo ninkii baahay kadib markuu ooyay baa lagu soo kaakaco markaas ay ninka maxaa ka oohisiiyay markaas loo yimi war maxaa ku helay baa yiri markaas yiri war yaaraheen show mar baanan maranta qaadin warta halka maranta qaadeen soo noqdo beesha way ka badan tahay beelena yar looga yeeray halka maranta qaadeen waxa la yiraahdaa guusha jeceshahay faacilka kuwa guuleystay baa lagu daydaayo horta beesha aad uma gilgileen adu baan wali wax ku sheegaynaayo adiga waliba shakhsiyaadka wasiir maxamuud oo kale cali xasan oo kale cali mareexaan oo kale waxaan leenahay baddu hadday soo kacdo xeega ma dhaafto madaxtooyada soo dhaafmaysaan maalmo ka midana waxa ahaan doontaan beesha un baahan doontaan maana aha beesha inaad sariftaan maaha laakiin waynu talo isugu nimaadna wixii aynu door bidno markaa waynu isla garanayna laakiin maaha inaad sida substation-ka u adeegsataan dhalinyarada oo ku maxabsataan aad iyo aad baan uga xunnahay assalaamu calaykum waraxmatullahi bismillaahi raxmaani raxiim aniga magacayga horta waa maxamed axmed hogaanka dhalinyarada halkan jooga ama gobolkan Maroodi Jeex joogana waanu ka mid nahay hogaankiisii sarana burca joogo arrintan maanta isukaaya keentay aanu kaga hadlayno arrinkan ninka dhalinyarada ku kacay raggii ugu horreeyay baa si wacan uga hadlo ku noqon maayo waxaanu ka hadlayaa hal qodob oo kale la soo dirsay siyaasadda dhaqan ahaanada beesha hogaankii hore siyaasadda beesha lahayd madaxtooyada joogi jiray ama xirsiba haddaan idhaahdo wuxuu ahaa nin dhalinyarada reerka muxaafid iyo mucaarad bay isku haya ama Somaliland dhalinyarada guud ahaan nin isku hayo ahaa niman kuwooda mucaaradka iyo kuwooda muxaafidka kala jeclaysan buu ahaa anigu weligii kulmiye ma gelin nin dhalinyarada beeshana waana haddana waxa weeye isku haynta beesha waan ogahayo xirsida uu isku hayahay annagoo mucaarada iyo annagoo muxaafida buu isku hayay waanu ku mahadsanaa waxay sharaftu saasi ku jirtay waxaase maanta soo baxay oo bartu fadhiyi jiray soo fadhiistay nin iska daayno isku hayo kuwii mucaaradii muxaafid ba lahaaye intii muxaafidka ahayd si kala gurgurayo jifa iyo raas kala guraya wax lagu farxi kariyo wax la soo dhaweyn karana maaha aad iyo aadna waan uga soo horjeednaa waxaan markaa anigu halkan talumar uga jeediyay waxaan leeyahay maxamuud xaashow inaan aad hogaankii dhalinyarada jiray dusha kaga soo horjeedtaa waxa ku hadal wax ka soconaya maaha wax muuse cid u keenayana maaha wax muuse dhalinyarada habar jecel ku hantiyi karana maaha xaqiiqaduna waxay tahay beeshan ama deegaankan aanu ka soo jeedno dadku majority-giisu baasha siyaasaddan way isbedbedeshaa aragtida bini'aadamkuna way kortaa masiirkooda halka uu mari doonana waxaa laga garanayaa soo dhaweyntii xirsiya ugu dambaysa laga garanayaa barta reerka masiirkiisu marayo waxa weeye dhalinyaro haddaanu nahay haddaanu waayeel nahay haddii ay ganacsato tahayba miisaanka iyagu wuxuu la socdaa isbahaysiga dimuqraadiyadoonka xaqudirirka samaka taliska dalka shantii sano rag imika dawladda ku jiray shantii sano imika dawladda jirtay muraayadoodii ahaa halkay mareen baa la marayaa maantana xitaa hadday kulmiyadda ay hadday tagaan xisbiyada kale ka mid ah kaasaa loo raacaya muusena cid kaga heli maayo deegaanka iyo beesha toona sidaa kaga heli maayo kuwa sacabka sidaa ugu tumayaan wax u soo kordhin maayaan been baan u sheegayaan arrintaa markaa halkaas aynu kusoo koobaynaa weliba waxaan halkan ka caddaynaya in dhalinyarada habar jeclo ama beesha bariga burco ay masiirkooda ay ahaan ay dib uga tashan doonto shirna isugu iman doonto burcaa kaana qabanqaabadiisa iyo hawshiisa halkan iyo halkaaba waa laga bilaabayaa waana la tashanayaa inan yaroo dambe meel ka hadla iyo inan meel ka hadashaa toonna ka talin mayso
aad iyo aad baa dhammaantiin u salaamantihiin